agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka deeq Suleymaan Yuusuf ayaa ka hadlay muddada 3 maalin ah oo socon doono shirka haweenka ee ku yeeshay magaalada Muqdisho waxyaabaha lagu lafaguri doono. shirkaas ujeedka ugu weynna waxa weeye in sidii loo diyaarin lahaa axdi qarameed u gaara haweenkeena oo runtii laga eegayo arrimaha ku taxalluqa siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada taasoo haweenka Soomaaliyeed la doonay inay u dhanaadaan marka billahi taala waxaan rajaynaynaa 3 maalmood oo soo socda oo maanta ku jirto waxaan rabnaa in diiradda lagu saaro in la eego in laga doodo dastuurka oo hadda qabyo qoraal ah iyo haweenkeena maxaa kaga aadan maxaa macnaha sidee haweenkeena uga muuqan karaan diyaarinta dastuurka maadaama hadda dib u eegis lagu sameynayo kaalinta haweenkeena inay noqoto mid dastuuri ah oo sharciyana oo la taaban karo oo dhaxal u noqda jiilasha dambe oo haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed billahi taala iyo qaybgalkooda siyaasadeed in halka ku cad yihiin waad ogtihiin kaalinta ay haweenkeena kaga jiraan nolosha ummadda Soomaaliyeed qodobka labaad oo diiradda lagu saarayo isna waxa kamid ah gabadhfalada ka dhanka ah gabdhaheena iyo haweenkeena oo runtii ayaan darradu ay tahay inay tiradii ay ku sii bateen ha noqoto waqtiyadii dagaalada sokeeyay ay socotay iyo ha noqoto waqtigan xaadirka ah oo runtii aad la socotaan falkii arxan darrada ahaa aad iyo aad u fooshuxuma oo aan islaamiga ahayn oo aan dhaqanka Soomaaliga aan waafaqsanen oo ka dhacay muxuu ahaa qaybo kamid ah dalka runtii waa wax laga xumaado waana ayaan darro marka iyadoo laga eegayo dhacdooyinkaas in la sameeyo sharciyo dhaxalgala oo mataqaanaa badbaadiya ilaaliya xuquuqda gabdhaheena iyo haweenkeena si la socotaan waxay dawladdan muxuu ahaa nabad iyo nolol ay golaha wasiirada laga ansixiyay sharciga qabyo qoraalka ah oo ah sharciga ka hortagga dambiyada jinsiga si la socotaan haddana wuxuu sharcigaasi hadda hor yaallaa soo qabyo qoraala golaha baarlamaanka waxaan rajaynayaa inuu ka gudbo aqalka sare u gudbo kadibna insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynaha loo gudbo sharci noqdo marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inay muhiim tahay in qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ha noqdaan xildhibaanada ha noqdaan ururada haweenka ha noqdaan ardayda iyo ha noqdaan xirfadlayaasha kala duwan Soomaaliyeed in gacmaha la isqabsado sidii sharcigaasi loo marmarin lahaa waxaan rajaynaynaa in sharcigaasi marka uu meel maro in halka ka soo baxaan waxyaabo dhaxalgala oo ilaalinaya cirdiga karaamada sharafta iyo xuquuqda gabdhaheena iyo haweenkeena billahi taala marka waa shir arrimahaas oo dhanba lagu eegi doono waxaana rabaa inaan haddana mar labaad hoosta ka xariiqo in shirkani uu yahay shir haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin in shir uu yahay haweenka Soomaaliyeed ay maamulaan inuu yahay shir waxa ka soo baxana haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo iyagana hogaaminayaan marka haddaan anigu ku hadlay magaca ragga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo waan idin garab taaganahay hooyooyinkeen baa tihiin gabdhaheena baa tihiin ayooyinkeen baa tihiin la'aantiina waa nolol la'aan waan idinla shaqeynaa waan idin garab taaganahay insha Allah saas qalbigiina u sheega iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horeysay shirweynaha waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada beesha caalamka gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duq Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ahna qosimaha gudoomiyaha iyo marwada madaxweynaha oo daafurtay maxaa loo hadla maanta maxaa lagu soo bandhigay shirka haddii aan isku soo wado dabo runtii aan ka soo bilaabo khudbadii ay marwada ummadda Soomaaliyeed Mama Zainab ay maanta ay meesha ka jeedisay runtii khudbad aad iyo aad u dhaxalgala oo qiiro leh oo mataqaana ujeedo fog leh ayay soo jeedisay iyadoo taabatay dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan haweenka Soomaaliyeed iyadoo haddana soo jeedisay halkii lagu gaari lahaa midnimo iyo horumar muxuu haweenka Soomaaliyeed ku gaari lahaayeen
waxaa kaloo ay runtii aad iyo aad muhiima aan rabo inaan sheego ay ka hadashay inay muhiim tahay isku duubnida iyo isku tashiga iyo wadajirka haweenka Soomaaliyeed meel alla meesha ay joogaan baaqiyo badan baa maanta ka soo baxay runtii ugu dambeyntii waxay ku baaqday in ma taqaana ka dawlad ahaan inay arinta iyadoo ma taqaana xafiiskeeda kaashanaysa inay u guntatay ay doonayso in ma taqaana haweenkeena ay horumar gaaraan wixii xuquuqdooda iyo waxa ka maqana inay ku dadaali doonto inay soo dhici doonto ballanqaadkaas ay qaaday runtii aad iyo aad aan ugu wada farxnay golihii wasiirada xubnihii ka hadlay wasiir Jamaal gudoomiye Mahad Cawad gudoomiyihii gobolka Banaadir dhamaantoodba way hoosta ka xariiqeen isla fariintaasi iyo sida ay ugu hiilan yihiin in maaragtay xuquuqda haweenkeena iyo gabdhaheena ay xuquuqdooda u heli lahaayeen waxaa kaloo isna meesha ka hadlay ku-xigeenka wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhexeeya Peter de Klerk oo isaguna runtii dhambaal aad iyo aad u qiimo badan meesha ka soo jeediyay iyo sida caalamka ay diyaar ugu yihiin inay hablaheena iyo haweenkeena ay u caawiyaan ay arrimahan dastuurka ka caawiyaan inay ka caawiyaan ka qaybgalka siyaasadeed inay ka caawiyaan xagga dhaqaalaha siyaasadda